sheekh yuusuf alkownayn taariikhda aan qornayn ee soomaalida iyo itoobiyaanka waxaa magaciisa lagu sheegay aw barkhadle waxaana ay aaminsan yihiin labadani dadyow inuu ka yimi carabiya oo ah hadda dhulka loo yaqaano sacuudi arabiya laakiin taariikhyahanada carbeed ayaa aaminsan inuu ahaa nin fidinayay diinta islaamka oo dhulkani soo gaadhay ku dhowaad 1000 sano ka hor qaybo badan oo Soomaalidii waxay sheegtaan inay ka soo farcameen Quraysh oo ah qabaa'ilkii uu ka dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dad kale oo taariikhda wax ka qora waxay sheegayaan in Yuusuf al-Kownayn uu ahaa nin Soomaali oo caalim ahaa oo wax ku bartay magaalada Saylac iyo dalka Ciraaq oo uu safray waxaana Ciraaq looga yaqaanaa al-Baghdadi waa ninkii baray Soomaalida hingaada Quraanka halka taariikhyahanada qaarna ay rumaysan yihiin in sheekh yuusuf uu ahaa ninkii dunida carabta baray idaha madaxa madow ee lagu dhaqdo dhulka Soomaalida oo carabtu ay ugu yaqaanaan laxdii berbera oo hilibkeeda aad looga jecel yahay maadaama xoolahani hadiyad ahaan uu ku siiyey dad carbeed oo xidhiidh ay lahaayeen meelo kale oo dunida ana aw barkhadle waxa looga yaqaanaa shariif waana wadaad magac dheer leh oo laga yaqaanay dhulka Somaliland qarniyaal badan wiilkiisuna waxa mar dambe uu noqday amiirkii magaalada Harar ee dalka Itoobiya sheekhani waxa kaloo la sheegaa in inta uu ka tagay magaalada Saylac uu diinta islaamka ku faafiyay koonfurta Aasiya sida lagu sheegay qoraallo lagu kaydiyay buugaagta diiwaanu al-awliya Yuusuf al-Kownayn waxa lagu xidhiidhiyaa inuu qayb ka ahaa sidoo kale boqortooyadii Adal ee ka talin jirtay dhulka galbeed ee Somaliland ilaa xeebaha Djibouti waxaana wadaadkani lagu siyaartaa sanad walba meelo ku yaala duleedka magaalooyinka Hargeysa Boorama iyo Harar waxa kaloo laga xusaa dalka Sri Lanka ee ku yaala koonfurta Aasiya oo dadka muslimiinta ee ku nool dalkaasi ay sheegaan inuu ka mid ahaa dadkii soo gaarsiiyay diinta islaamka qoraagii Ingiriiska ahaa ee loo odhan jiray M.A. Lewis ayaa waxa buuggiisa la yidhaahdo Saints and Somalis uu ku xusay in mid ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in awowgoodii ay ka tafiirmeen ay kulmeen sheekh Yuusuf al-Kownayn kadibna uu sheekhu u sheegay waa sida qoraalkani loo dhigay inuu dhali doono caruur badan oo la barakeeyay waana sababta sanad walba qabaa'ilkaasi ay u booqdaan qabriga aw barkhadle oo xoolo badan ay ugu qalaan sheekh Yuusuf al-Kownayn ama aw barkhadle waxa xabaashiisa laga siyaartaa meelo kala duwan waxaana uu duceeya Soomaali badan iyo dad muslimo ku nool magaalada Harar dhanka dalka Sri Lanka waxa magaciisa looga yaqaanaa sheekh Yuusuf bin Ahmed al-Kownayn halka Ciraaqna looga yaqaano sheekh Yuusuf al-Baghdadi abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka moobilo iyo lacag kaash si aad uga mid noqoto guuleystayaasha ku shubo $0 ama $0.5 oo kaliya ama ka badan isla markaana ha furnaado teleefankaagu muddada 90 cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeegga e-dahab shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel